kulan wacan daawadayaal halkan waa janaalka Hubaal News qodobada wararka daawa doontaana waxaa kamid ah faahfaahin kala duwan oo ka soo baxaya xaaladda caafimaad ee madaxweynaha Jubbaland Saciid Dani oo muddo kadib iska xaliyay baarlamaanka Puntland Kenya oo maalmo qura Soomaaliya kaga faa'iido malaayiin dollar iyo 2 sano kadib maxay uga dhigan tahay reer Hiiraan magacaabista golaha wasiirada Hirshabelle qodobadaasna waxay ahaayeen kuwii ugu waaweynaa warka janaalka Hubaal News fadlan ku soo bir janaalkan oo kamid noqo saaxiibada ku soo xirmaya ee ka hela wararka aanu ku baahina halkan aragtidaada daawada halka oo noogu reeb muuqaalka si share garay asxaabtaada laagtaadana waa inoo dhiirigelin haatan ku soo dhawaada qodobadaad maqasheen oo faahfaahsan warar kala duwan ayaa waxa uu ka soo baxaya xaaladda caafimaad ee madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe xogaha aanu ka helayna Jubbaland ayaana tilmaamaya in Axmed Madoobe loo qaaday dalka Imaaraadka Carabta halkaas oo uu ku marayo baaritaan caafimaad lama hayo xog dhameystiran oo ku saabsan xaalka madaxweynaha madaxtooyada Jubbaland ayaa ka gaabsatay xogaha safarka caafimaad ee madaxweyne Axmed Madoobe in ay banaanka keenaan ama ka warbixiyaan sanad ka hor ayaa madaxweyne Madoobe sidaan oo kale xaalad caafimaad oo aan la shaacin loogu qaaday magaalada Nairobi ee caasimadda wadanka Kenya balse Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa maanta la filayay inuu shir gudoomiyo shirka amniga Jubbaland oo bishiiba mar la qabto kaas oo ay ka qayb galaan saraakiisha sarsare ee maamulkaasi kuwa dowladda federaalka iyo hogaanka ADMIS waxaana shirkaasi maanta gudoomiye madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan arintaas oo kaabaysa jiritaanka xogaha ku aadan xaaladda caafimaad ee Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe loogu qaaday dalka Imaaraadka Carabta inta badan madaxda Soomaalida ayaa markii ay soo wajahdo xaalad caafimaad daro waxa loola cararaa qaar kamid ah wadamada dariska iyo kuwa kale ee saaxiibada dhow leeyihiin madaxdu halka oo ay ka raadsadaan xaalada caafimaad geesta kalena Saciid Dani iyo baarlamaanka Puntland waxa ay ka heshiiyeen khilaafkii ka dhex taagnaa wararka laga helayo magaalada Garowe ayaa sheegaya in mar kale kulan ay yeesheen guddi ka socda baarlamaanka Puntland iyo madaxweynaha maamulkaasi Saciid Cabdullaahi Dani kaas oo looga hadlay xiisada ka taagan Puntland kulankan oo ka dhacay xarunta madaxtooyada ayaa waxaa diiradda loogu saaray sidii xal loogu heli lahaa xiisada u dhaxaysa baarlamaanka iyo madaxtooyada taas oo ka dhalatay magacaabista xubnaha maxkamadda sare oo ay ka biyadiideen golaha wakiilada Puntland wararka ayaana sheegaya in haatan lagu guuleystay xalinta xiisada labada dhinac ka dhex jirtay taas oo meesha looga saaray madmadowga soo kala dhaxgalay madaxweynaha iyo baarlamaanka sida aan ogaanay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani ayaa ballan qaaday inuu mar kale soo magacaabayo xubnaha maxkamadda sare oo ay goluhu hore u diideen inay meel mariyaan taas oo xudun u noqotay khilaafka siyaasadeed ee ka jira magaalada Garowe sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Puntland ay keensadeen xubno qaar oo loo magacaabayo maxkamadda sare taas oo ay cadaadis ku saareen madaxweynaha oo hore 2 jeer ku adkaystay xubnaha laga diiday waxaa kaloo suuragal ah in madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani uu ciyaaro shax kale isla markaasna uu soo celiyo tiro kamid ah xubnihii hore loo diidanaa ee uu magacaabay maxkamadda sare si kastaba xiisadani ayaa si weyn u saameysay wada shaqeynta xubnaha iyo baarlamaanka dowlad goboleedka Puntland taas oo hoos u dhac weyn sababtay heshiiska ay gaareen madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo xubnaha ka socda baarlamaanka maamulkaasi Puntland ayaa waxaa dabaaldegiisa iyo muujinta heshiiskaasi ay keentay in ciyaar saaxiibtinimo oo kubadda cagta lagu dheelo garoonka kubadda cagta ee Mira Awaare ee ku yaala magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland kulankan ayaana sidoo kale la sheegay inuu yahay mid loogu dabaaldegayo 1 Agoosto oo ah sanad guurada aas-aaska maamulka Puntland sidoo kalena ciyaartan ayaana ahayd mid u dhaxaysay golaha wasiirada Puntland oo uu hogaaminayo Saciid Cabdullaahi Dani iyo xildhibaanada dowlad goboleedka Puntland oo ay hogaaminayaan gudoonka baarlamaanka maamulkaasi dowladda Kenya muddo 4 maalmood gudahooda ku dhawaad 2 milyan oo dollar ayay ka faa'iiday qaadka ay u soo dhoofinayso Soomaaliya dalka Kenya ayaa Soomaaliya u soo dhoofiyeen 4 maalmood ee la soo dhaafay qaad qiimihiisu dhan yahay 2 milyan oo dollar sidaasi waxaa baahisa warbaahinta Nation TV waxaa la qiyaasayaa wax ka badan 30 milyan oo dollar inuu gaaro dabayaaqada bishan dhaqaalaha ay qaadka ka helayso dowladda Kenya iyadoo aan weli bilaaban dhoofka kalluunka Soomaaliya oo qayb ka ahaa heshiiska ay gaareen wadamada Soomaaliya iyo Kenya si kastaba heshiisku
uu madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud 15kii bishii hore ee Julaay la gaaray dhigiisa Kenya. Masar Kenyatta ayaa dib loogu furay qaadka Kenya kaas oo muddo ka badan 2 sano dalka looga mamnuucay kadib muran soo kala dhaxgalay dowladii madaxweyne Farmaajo iyo tan Uhuru Kenyatta uu hogaaminayay. Kenya ayaana waqtigii horeba malaayiin dollar ka faa'iidi jirta qaadka ee keento gudaha dalka Soomaaliya, balse ma jirin bedelkeed. Soomaaliya waxay ka faa'iideysaa Kenya oo ku aadan in laga dhoofiyo Soomaaliya oo loo iibgeeyo gudaha dalkaasi Kenya, balse heshiiskii ugu dambeeyay oo quseeyay in kalluunka Soomaaliya loo dhoofiyo Kenya ayaa waxaa jirtay cabashooyin ka yimid qaar ka mid ah kalluumaysatada Soomaaliyeed oo ka dhawaajiyeen inuusan jirin wax heshiis arrinkaas la xiriira oo fulay, isla markaasna sidaan oo kale kol hore ugu lugo-een heshiiskii Soomaaliya iyo Itoobiya ee la xiriiray qaadka iyo kalluunka in la isweydaarsado. waa hagaagay daawadayaal iminkana waxaan eegaynaa 2 sano kadib maxay uga dhigan tahay reer Hiiraan magacaabista golaha wasiirada Hirshabelle ayada oo saqdi dhexe ee xalay madaxweynaha Hirshabelle Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe uu magacaabay golihiisa wasiirada oo ka kooban 80 xubnood oo iskugu jira wasiiro ku-xigeen iyo wasiiro dowlayaal ayaa waxaa ka dhashay falcelin xooggan. Cali Guudlaawe oo 2 sano ay ku qaadatay inuu soo dhiso xukuumadan cusub ayaa durbaba kala kulmay daleeceen xooggan oo uga imaanaysa dhinaca reer Hiiraan. qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ee ka soo jeeda Hiiraan waxay si weyn u dhaliileen liiska golaha wasiirada ee uu ku dhawaaqay madaxweynaha Hirshabelle xildhibaan Maxamed Cabduqaadir Maxamed oo ka mid ah xubnahaasi oo qoraal kooban soo saaray ayaa shaaca ka qaaday inaysan marnaba ku qanacsaneen wasiirada cusub ee loo soo magacaabay iyo guud ahaanba hab dhismeedka dowlad goboleedka Hirshabelle. waxaa marnaba indhaha laga qabsan karin xaaladda Hirshabelle iyo sida ay wax ku socdaan. waxaa baadigoob u galaynaa heelista Hirshabelle ku dhisan aqoon iyo awood qaybsi midnimo leh. Hirshabellada shakhsiga jaabka ku wato waa laga saarayaa insha Allah. dadka aan ku matalno kursiga xildhibaannimadana ee reer Hiiraan marnaba kuma qanacsaneen dhisida Hirshabelle ayuu yiri xildhibaan Maxamed Cabduqaadir Maxamed. sidoo kale wuxuu intaasi ku daray inay sii wadi doonaan baadigoob uu sheegay inay ugu jiraan xaq ka maqan reer Hiiraan, isaga oo tilmaamay inaysan xal u arkin wasaaradaha loo kala wareejiyay 2 beelood sida ka muuqata golaha wasiirada cusub ee Hirshabelle. waxaan hormuud ka noqon doonaa helista xaqa naga maqan. wasaaradaha loo kala wareejiyay 2 beelood ma ahan wax lagu sixi karo. dadkayga xaqa iyo xuquuqda ka maqan ayaa ka baaxad weyn xisaabta shakhsiga gaarka ah uu wato. haddii Guudlaawe uu diiday inuu talo iyo tusmaba ka dhageysto madaxda deegaanka, waxaan sugaynaa halka uu ku furo geediga, ayuu mar kale hadalkiisa sii raaciyay xildhibaanku. dhankiisa xildhibaan Maxamed Cabdullaahi Buraale oo isna ka soo jeeday Hiiraan ayaa ka hadlay arrintan, wuxuuna si adag uga horyimid xukuumadda uu soo dhisayo Guudlaawe. Hirshabelle geel markii loo heeso goronyo ayay u haystaa. dadkaygow haba ku mashquulina Hirshabelle sidii aad u diideen ha ahaato. waqti badan, hanti iyo dhiig ayaa idinka galay inaad heshaan maamul 2daasi gobol ah oo loo dhan yahay. nasiib wanaag maanta matalaad dhab ah oo idin horboodaysa ayaad haysataan, ayuu yiri Maxamed Buraale. Hirshabelle ayaa muddo dheer ku jirtay khilaafaad dhanka maamulka ah, taas oo ka dhalatay doorashadii madaxweyne Guudlaawe, waxayna taas hoos u dhigtay horumarkii maamulkaasi laga sugayay. guud ahaan daawadayaal wanaga intaa warkii oo aad kala socoteen Hubaal News. fadlan daawade qayb ka noqo saaxiibada ku xiran channelkan, aragtidiinana halka hoos noogu reeba muuqaalkan oo sii share gareeya asxaabtiina. laagtiinana waa inoo muhiim, waana ku mahadsantihiin daawashadii la socodka warka channelka Hubaal News.